السلام عليكم أصحابتا maanta waxaan rabaa inaan tuso qaabka loo soo geliyo guest post ama blog post waxa la dhaho. Blog post waxa la dhahaa waa kuwan waa sawirro iyo video sidoo kale iyo qoraal haddaan fiirino kan oo kale. lix xirfad oo ay tahay inaad lahaatid 2023 baro xirfad waasaan oo kale sawirro iyo qoraallo ayaad soo gelin kartaa Somali courses si free ah. marka hore waxaad tagaysaa Google-haaga ama telefonka ama laptop-kaada isticmaalaysid kadib waxaad qoraysaa somalicourses.com kadib search ayaad leedahay kadib website-ka ayaa kuu soo baxayo kadib website-ka aad ku dhufanaysaa kadib waxaa kuu soo baxaya qaybtan homepage-ka haddii aad hore ugu soo jirto waxaad taabanaysaa sign in haddii aad cusub tahay waxaad taabanaysaa register marka aniga hore ayaan u isticmaalaynay sign in ayaan leenahay kadib halkaan ayaa kuu soo baxayo magacaaga iyo numberka passwordka gelisay halkaan ayaa taabanaysaa keep me sign in ayaa taabanaysaa kadib sign in ayaad leedahay kadib waxaa kuu soo baxayo koorsooyinka iyo waxyaalaha aad baranaysay waxaan leenahay marka qaybta waxaan tegaynaa homepage-ka marketplace-ka loogadan ayaa taaban kartaa ama linkan ay ku qoranta marketplace ayaa taabanaysaa hadda waxaan taabanaynaa qaybtan loogada kadib waxaa kuu soo baxayo qaybtan ayaa kuu soo baxayo homepage-ka ayaan kusoo laabanay homepage markaan kusoo laabano waxaan taabanaynaa meesha ay ku qoran tahay pageska meesha menu-ga kadib waxaan raadinaynaa meel ay ku qoran tahay guest post guest post-kan ayaa kuu soo baxayo waa formkan ayaad buuxinaysaa si aad u soo geliso post-ga si free ah qaybta u horeysa waa post title waa post-ga magaceeda ama blog magaciisa hadda anaga waxaan diyaariyay hal post halkaan ayaa taabanaysaa post-ga title-kiisa waa kan copy ayaa soo leenahay kadib halkaan ayaan baasto ku leeyahay kadib haddana waxaan meeshan anti-spam waaye si uusan bots-ka wax usoo gelinin marka hal udra hal waa labo kadib haddana waxaan tegaynaa title-ka intaan dooran course waxaan dooranaynaa category-ga waxaan ka dooranaynaa freelancing kadib kan ayaan soo gelinaysaa title-kii koowaad waaye kadib introduction-ka iyo waxyaalahaas hal mar ayaan koob soo leenahay kadib past ayaan leenahay kadib waxaan soo gelinaynaa sawir sawirkan ayaan soo gelinaynaa kadib submit ayaan leenahay wax yar ayaan sugaynaa marka waxaa kuu soo baxayo message success ah oo dhahayo postkaaga waa la post gareeyay sidoo kale telefonkana waa isku mid markii aad soo diiwaangeliso baa waxaad tegaysaa markaad halkan joogto oo kale for example waxaan dhahaynaa telefonka waa same telefonka saan ayaa kuu soo baxayo qaybtaan ay ku qoran tahay samar kuu soo baxo qaybtaan ay ku qoran tahay ayaad taabanaysaa page-ka ayaad raadinaysaa kadib waad taabanaysaa kadib guest post ayaad leedahay oo kaa soo maaragtid telefonka waa same saan ayaad usoo gelinaysaa kadib 5 daqiiqo camal ayaad sugaysaa si post-ga loo approve gareeyo marka mar walba waxaad ka fiirin kartaa qaybta blog ayaad ka fiirin kartaa hadda intaan ay ku jirto 5 daqiiqo camal ayaan sugaynaa marka hadda refresh ayaan dhahaynaa halkaas aad aragto post-ga markaas uu soo galay waxaan fiirinaynaa soo eegyahay
halkaas boostiga saan ayuu soo gelayaa. sidoo kale banaankaan ka fiirino halkaas banaanka uu soo galay. marka halkaas sida loo soo geliyay Blockbuster Somali Courses adoo laptopka ama telefonkaaga isticmaalayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.